بسم الله والحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهج إلى يوم الدين وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكولوحا وهذا دون ما يسمى المسؤولية حيث هي إن المسؤولية قلب ama ha noqoto inaad gurigaaga mas'uul ka noqoto ama ha noqoto inaad iskuul mas'uul ka noqoto ama madrasada mas'uul ka noqoto ama masaajid aad mas'uul ka noqoto ama reer dhan oo intaasoo kunoo qof aad mas'uul ka noqoto iyo inaad tiraahdo ummadda oo dhan baan mas-uul ka ah markaa si kooban waxaan uga hadli doonaa mas-uuliyaddu waxay tahay dunidu maanta waa 7 bilyan iyo 600 milyan muslimiintu maanta intay nimanka dunida haysta ee muslimiinta gumaysta ay 1900 iyo 82 noo sheegeen waa 1 bilyan iyo 400 oo milyan bayna yidhaahdeen laakiin marka aynu maskaxdeena isticmaalno muslimiintu maanta 2 bilyan iyo siyaado ama 2,000 oo milyan iyo siyaado muslimiintu kama yara tirada intaa leeg ee muslimiinta ah dunida marka maanta 3 meelood loo qaybiyo meel ka mid ah ee wadamada muslimiinta ah marka la qiimeeyo nimanka aqoonta u leh waxa maanta dunida la isku haysto ee dunida lagu gumaysto ee ay ka mid tahay waxa maanta hydrogen bomb ka yiraahdaan ama nuclear bomb ha yiraahdaan laga sameeyo ama ay noqoto dunida energy-ga la isku haysto ama waxa energy-ga lagu isticmaalo daaqada ama awoodda dunida oo dhan isku xidha waxa lagu isticmaalo wadamada muslimiintii waa dadka ugu badan ee Ilaahay siiyay marka la eegayo wadamada la beero waa dunida waxa la isku haystaa maanta ninka waxa uu cunayo iyo waxa uu xidhanayo iyo waxa uu ku noolaanayo aan la soo bixin wada gumaysanayo qamadida ugu badan ee maanta dunida lagu gumaysto Mareykanka soo saar oo inaanay dadkuna wax la soo bixin iyagana uu qamadida ku gumaysto istaraatiijiyadaasi ayaa boqolaal sannadood ka hor nimanka dunida haysta ay dhigeen masar maanta waa dalka haddii roodhida ama khubustu ay kacdo 100 milyan la isku qabsado masar waxay ahayd meeshii markii caamir ramaada muslimiinta sanadkii abaartii ugu kululayd ee waqtigii Umar bin Khattab dhacday qamadida halkii looga keenayay Misr bay ahayd subhanallah wala la dagaalamay dagaalkii waxa la gaarsiiyay in qamadida maanta Mareykanku ku gumaysto dalka waqtigiin ilaa faraacinadii ilaa inta uu soo jiray iyo waxa taariikhdiisu ay tahay oo runtii maanta ayna waqti u haynin inaynu taas soo sartin almuhim meelaha maanta dagaaladu ay ka socdaan aan sababta lahayn meelaha maanta gaajada iyo faqriga iyo mashaakilka iyo leelleelka iyo hooyada ooyeysa iyo agoonto ay dhiban yihiin oo wadamada muslimiinta idan waxaasoo dhan sababteeda wata aynu caawa ka hadlayno cafwan maanta ka hadlayno وهذا ما يسمى عدم المسؤولية في داخل المجتمع الإسلامي مسلمين وحاني فاهمين
xilka ilaahay saaray kuwa talada haya iyo xilka ilaahay saaray inta ma yusama ahlul hal wal aqd inta waxna xidha waxna quluba islaamku wuxuu la xisaabtamaa ahlul hal wal aqd waxa ugu horeeya dadka ilaahay la xisaabtamaya qiyaamaha kuwa maanta mas'uuliyadda qaada kuwa ku xiga waa culimada kuwa ku xiga waxa weeye ru'asaa'ul qabaa'il kuwa ku sii xiga waa dadka loo yaqaano an-nubahaa wa dawl ilmi waa waxaan hal doorka la yiraahdo waa dadka hal abuurka la yiraahdo waa dadka aqoon-yahanka la yiraahdo waa dadka ilaahay hibada u siiyey waxyaalo badan oo dadkooda ay ku tari lahaayeen idan anigoo gobol dhig badan u sameeyay waxaan doonayaa in yar inaan tilmaamo hadhowna ku soo dhaweeyo maaha inaynu ka hadalno orbit aan kan ahayn macnaheedu waxa weeye aan soo daadajiyay mas'uuliyaddu waxa ay tahay oo isha shareecada aynu ku eegno teena aynu ku iftiimino ayay ila noqon doontaa الإمام الحقاني وأئمة المسلمين الدين تفهمي كمدها يراد بالمسؤولية الشعور بأداء الواجب والإخلاص في العمل مسؤولية وحلا إلى هذا إنا درينته قلبك كدرينته بأداء الواجب إلى واجب قدرته هداد قدويده تنبيقين إلهي كوكو قاضي والإخلاص في العمل إن أضوحى إلهي درتي أقبط مرك المسؤولية قاضي وهذا النمو ووقت ذاتك أي وذه الدال صحابة كم إذا أي نبو ضبقر يقول لي أبي سيده وصعده لكي سيده وسعودي wuxuu tagay magaalada koonaheedu tagay dabeeta guri buu galay subxaanallah ninkaas waa hadoodalan yahay gurigaasuu muddo ku dhex jiray waa ka soo noqday ninkii muslimka ah kale saxaabiga ahaa ee daba socday ayaa gurigii galay waa islaan indhala oo goblana waa subxaanallah iyadii ilaahay oo kaliya ay magaratay meeshaas joogaan subxaanallah walciyaadu billah qof bini aadmiyo oo kale oo meesha jooga ma jiro ninkii wuxuu weydiiyey muxuu ahaa ninkani kuu soo galay waxay tiri maalin walba waqtigaas uu u yimaadaa subxaanallah gurigana wuu ii hagaajiyaa weelkayga ayuu hagaajiyaa dharkayga ayuu maydhaa raashin waxaan u baahanahay buu isiiyaa dabeeta wuu iska tagaayo wax allaaliye wuxuu yahay iyo meel allaaliye meel uu ka yimid garan maayo waa islaan da'a oo yuururta weeye kallatun macnaheedu waxa weeye laysa lahaa farcun dambe waqti hore soo kalahayo ballinkani waxa uu yahay yani usii hor fadhiiso meesha buu isaguna wuu hadoodisho koona yar buu u galay ninkii si uu eego waqtigii buu ninkii